15 bishii Oktoobar sanadkii 1969 ayaa la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo socdaal ku mareeyay magaalada Laascaanood waxaana Allah u naxariistay madaxweynaha la aasay 20 bishii Oktoobar isla habeenkii xigay ayaa intaan waagu baryin ay ciidamadu la wareegeen taladii dalka Soomaaliya haddaba sida laga yaabo inay dhageystayaal badani xusuusan yihiin sanad guuro walba oo ku aadan markii ciidamadu ay qabsadeen talada wadanka laanta af Soomaaliga BBC-du waxa ay sii deyn jirtay barnaamijyo lagu miisaamayo sida uu yahay xaalka dalka Soomaaliya iyo hadba jawigii markaasi taagnaa intii haddaba aan dhex marayay waxa igu soo baxay barnaamijyadaasi kii ugu dambeeyay waanu halkan ka sii daynay 22 bishii Oktoobar sanadkii 1990 barnaamijkaasi oo aan isleeyahay waxa uu tilmaan hufan ka bixinaya xaaladii markaasi ka jirtay dalka Soomaaliya waxa halkan idinka soo jeediyay oo isku soo dibariday Yuusuf Xasan oo markaasi ka tirsanaa laantan af Soomaaliga BBC-da haddaba aan idinku wareejiyo Yuusuf Xasan ciidamada Soomaaliya balama fara badan ayay qaadeen berigii ay xukunka qabsadeen balaan idin xusuusino kuwa kamid ah dalka Soomaalida marka aanu ku taagno adimo caafimaad qaba oo lagu socon karo ayaanu dabadeeto haddii aanu nahay ciidamada militariga xukunka ku wareejin doonaa dad Soomaaliya oo u qalma madaxtinimada wadanka ciidamada militariguna waxa ay dabadeeto ku noqon doonaa buu yiri jagooyinkii loo qoray iyo shaqadoodu wixii ay ahayd waxaan yeesnahay in dadka aan u dhiibo xukunkii mar allaale marka wadankaas laga dhameeyo musuqmaasuqi oo loo soo celiyo dawlad wanaagsan General Maxamed Siyaad waxa uu yiri anigu hunguri maanta kama qabo in aan madaxweyne amba ra'iisul wasaare noqdo waxa uu intaa ku daray in aanu taariikh u qaban karaynin ay damacsan yihiin dalka Soomaaliya in lagaga sameeyo doorasho caama hase yeeshee waxa uu ku daray in dastuur lagu hayo gacanta golaha sare ee thawrigu waxay ka tashan doonaan dastuurkaas haatan la hindisaayo in degdeg sharci uu ahaado iyo dadka in afti lagu weydiiyo 1974 oo sanadkii afraad ee taliska militariga uu xukunka qabsaday waxaan la weydiiyay Maxamed Siyaad Barre waxyaaladii wadanka uu qabtay wuxuuna ku jawaabay sida tan hadal kuma koobi karaan isleeyahay waxyaalaha waaweyn oo gacanka uu qabtay balse waxaan haddaan mid ka taabto aan isleeyahay waxa ugu weyn waxay noqon karaan in dadka Soomaalida ah oo awalto hurday inuu hurdada ka toosay dadka Soomaalida oo awalto ogeyn iyaga dad ahaan awoodooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga naftoodu waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan midnimadu ka soo tilmaamana matalan waxaan nin walba u garan karaya Soomaalidu in ay xagga saqaafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnabi oo dawlado kale to afkood iyo tacliintooda ay ku xirnaayeen laakiin markii af Soomaaliga la hirgeliyay digmadiisa in ay u noqdeen dad ahaantood Soomaali cusub ayaa dhalatay ayaa markaasi la sheegay dadkana waxay u hanweynaayeen waxyaalada dalka iyo dadkooda ay qaban karaan guulahaasi waxay dhaliyeen sugaan iyo heesooyin dadka qaarkii ay ku qaadaan guulwada siyaad waxaana ka mid ah heesahaasi midatan wadadii cadayd cadda saartay وعرابيو عمري جريو عمري جريو عيناك هاي talisku wuxuu ku dhawaaqay inuu la dagaalamayo cudurrada dalka hayo oo dhan kuwaana waxaa ka mid ahaa qabyaaladda madaxweyne Siyaad Barre oo ka hadlaya magaalada Muqdisho 1976 sidan ayuu yiri kaankaanu waxa weeye mid handuuraaga waxa weeye mid wadaniya waa yaqaana waxa ummad Soomaaliyeed la rabo ma ka joogtanaay ma aha qabiil ma hay kullu goyn qabiil waana dilay mana soo noqonayo suuqii la dhuntana saysan u kali doonaa soo dabaadinka in oo la dirsado iyo dib u socodka isticmaalka ka kumaysto ku xirano
sooma bartaanin kacaanka kan inuusan marnaba ka laabanin maslaxadda ummadda sooma barta